si wanaagsan u cabiray caqabadaha iyo dhibaatooyinka saxaafadda Soomaaliyeed haysto. laakiin waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo contemporary issues ama waxyaabaha ku cusub saxaafadda maalmahan dambe oo ugu horeysa waxaa loo yaqaana fake news, wararka macnaha aan sugnayn oo ama social media ha lagu trend garay ama meelo kale ha lagu blog dadka bloggaas loo yaqaano qoro iyagoo macnaha fikirkooda iyo bias ah ama wax aan jirin ama shaqsi mas'uul ah ka sheegaan ama dad kale. marka waxaan jeclaan lahaa raggiinan qalin jabiyey iyo kuwa hadda media ku jira inaan arrintaas aad uga fogaataan maadaama dalkeenni iyo ummadeenni ay ku jiraan macnaha xaalad aad fragile u ah oo u badan taxadar u baahan taxadar aad u badan. ma rabo warka inaan badiyo, waxaan rabaa insha allahu kollayba riwaayadaad ku sheegteen oo hadda shaqa la-aan ma noqonaysaan. tifiyadii caraday ka bateen qolowda tifiyada siyaasada. marka waxaa malaynayaa nin walbo ama gobolkiisa aad ama meel kale aaday inuu shaqo weyn doonin, laakiin inkastoo shaksiyan ma jecli in tifiyada tirada badan macno daray keenaya, laakiinse haddana Soomaalidu waxaa waysaa in nin walba ninka kale marka tifiya furtay oo malanaysa qoladan bas inay daawato. marka waxaan jeclaan lahaa inaad tustaan professionalism, dhibaatada saxaafadda Soomaaliyeed haysato oo aan wada ognahayna inaad wax ka bedeshaan. aad u mahadsantihiin guuleysta. aad ayay mahadsantahay sidaad waqtigaada inoo siisay. markan waxaan jecelahay inaan u yeero saaxiibkay Cabdalla Axmed Muumin oo isaga ka mid ah wariyaasha waaweyn ee hadda nala jooga islamarkaana ka mid noqday wariyaasha sanadkan ku guuleystay abaalmarinta warbaahinta Jarmalka ay bixiso. Cabdalla, soo السلام عليكم. مرتشفتا اسمه بشي برنامجك ardayda qalin jabinaysa macallimiinta iskuulka Somali Media Institute iyo qof kasta oo xil haya iyo xilka uu ku fadhiyo waan salaam calaykum. hadal badan mar rabo inaan dhaho waxaan rabaa ugu horreyn farxadda la wadaago ardayda qalin jabinaysa oo dareemi karaa qof soo dadaalay muddadaas wax baranayay maantana ay tahay maalintii ugu dambeysay ee uu farxaddiisa maanta uu la wadaagay jecel yahayna in dareenkiisa dadku ay dareemaan idiguna farxadda ay nala qaybsanayaan. walaalayaal waxaa aad looga hadlay dad badan oo halkan soo istaagay si fiicanna ay uga hadleen arrinta ku saabsan mas-uuliyadda saaran qofka journalista ama wariyaha. waxaan rabaa inaan ka bilaabo marka ugu horreysa inaan kala saarno qof kasta wax buu qori karaa, laakiin qof kasta oo wax qora wariye ma aha.